الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، إلهي جل وعلا وحلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مؤمنين يا إلهي كبقى كدور صدى عذاب كيسة يا عقاب كيسة هانا صودي منين يدكوا عن مؤمنين أهين معنيه لا أذكر من إنسان عبادة دائمة أو إيمانك دائمة وهكذا قويننا طريقة أضوها إنسان إلى الله جل وعلا إلهي جنوين كيسة يا رحمات كيسة ولا الليال معاني التقوى قرآنكم ميلا بدن بوكا هادلي ميلا وحا كمد في سورة آل عمران إلهي جل وعلا وحليه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلهي وحليه وحاد برتنتان janno ballaceedu samaawaadka iyo dhulka uu leeyahay samaawaadka iyo dhulalka toddobada uu leeyahay oo loo diyaariyay dadka muttaqiinta ah markii la macnayo muttaqiinta Allah wuxuu ku macnayaa jalla wa ala alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anil naasi wallahu yuhibbul muhsinin. wa kuwa bixinaya xilliga barwaaqada iyo xilliga dhibaatadaba wax bixinaya way waa kuwa carada qariya cidii ay dhib ka dareemaan afiya adin aan carada u muujin carada isku celiya way wal aafina an الناس waa kuwa dadka iska cafiya iska dhaafa way wallahu yuhibbul muhsinin. ilaahina waa jecel kuwa samafalayaasha idan macaanida taqwada iyo muttaqiinta waxa kamid qofku wixii uu dhibsado afiya adin qof muslima ka dhibsado inuu isliqsiyo oo ilaawo oo carad isku qariyo waxa ka mudan inuu cafiyo oo caloosh ka sii daayo waxa ka mudan inuu ku bedelo xumaanta wanaag sida Allah uu leeyahay idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. xumaanta wanaag ka horgeey oo ku riix waxaad arki doontaa qofkii idin ka dhaxeeyay cadowtinimada ka dhaxaysay oo ku jecel oo ku dhow oo ku hiilanaya baad arki doontaa. marka halka waxa lagu tilmaamay taqwada waxa kamid dadka la iska cafiyo bishan barakaysan ee Ramadaan waxyaabaha qofka muslimka ahi uu ku dadaalayo barakaadkeeda iyo khayraadkeeda kamida waxa diintu tilmaantay in cafiga alle jalla wa ala uu kamid yahay إلهي نكو عافية جل وعلا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها مركي النبي صلى الله عليه وسلم أي ويديسي نبي الله هدي بشا يا رمضان هبينك كتل خير كبدن ليلة القدر أن وافقه أما أن أقاده محان صمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحات هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إله وحاتها يمد عفي بدن عفي أنا واشعش يسكا يا عفي أنت عليه بوري هذا بلو فرصو هبينك ugu fadliga badan sanadka oo dhan ilaahay jalla wa ala dadka ugu badan naarta ka xoreeyo hadii aad ogaato habeenka maxaad oran lahayd baa nabigu soo koobay sallallahu alayhi wasallam maxaa lagu soo koobay lama oran janna igeli lama oran cadaabiga naar lama oran ilaahay xoolo badan isi oo ubad badan isi waxa soo dhan nabigu iyada qofku oranayo haddana meesha biyo kama dhibcaanka ee nabigu sallallahu alayhi wasallam Aisha kula dardaarmay waxa weeye waxa tiraahdaa ilaahayow cafigaagu waa badan yahay cafigana waa jecel ka cafi walaalayaal marka bisha Ramadaan hadaynu cafi doonayno waxa la rabaa inaynu cafino dadka muslimiinta waxyaabaha lagu helo cafiga alle waxa kamida in dadka la cafiyo أبو بكر رضي الله تعالى عنه مركي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لقوا قناي حمانة يزينة إلهي كبرية لي لكن هيد
ee runtii xaaditha iyo dhacda aad u culus oo dhib badan oo nabiga taabatay oo abubakar taabatay muslimiinta taabatay waxa ka mid noqday dadkii fidnada ka qayb qaatay ee faafiyay Mistax oo ahaa abubakar habrawadaagi kana mid ahaa dadka abubakar uu quudiyay ee beelo tabeena abubakar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu ku dhaartay Mistax inaanu dib waxba u taraynin kadibna Allah wuxuu soo diiyay jalla wa ala ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إلهي وحليه هي كدارا تدك هذنك إيو فضلك يا ديراتك ألسي إني وحسيان أو واحتران قرابضا إيا مهاجرينتا إيا مساكينتا إلهي وحليه هاي اسكا عفيان هدي أي دباطة إيا أفلقاد إيا وحلا مدى قارسيين هانا اسكا عفيانو إنداها غرسانو هاي اسكا رافان ألا تحبون أن يغفر الله لكم ودميدا شعلين الله إنو يدين عفية كان يدين دم بدافو halka waxaad ka fahamtay alla wuxuu jalla wa ala qalbigaaga ogolaysiinaya inaad dadka cafido maxaa lagu ogolaysiinaya alla wuxuu leeyahay ana ku cafiyay dadka iska cafi ilaahayna waa mid dambi dhaaf badan oo naxariis badan waxyaabaha tilmaamaya macnaha in qofku hadduu dadka cafiyo ilaahay isna cafiyay waxa kamid ah xadiis saxiix ah oo Bukhari ku sugan ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka sheekayay nin ganacsada ah oo dadka wax deymin jiray kadibna marka uu arko qof faqiir ah oo deen lagu leeyahay wada jiray wiilasha shaqaalaha ku wada jiray iska cafiyo iska dhaafa in ilaahay naga inoo dhaafa rajeynayna inaguna ninkii waa dhintay ilaahay wuu dambi dhaafay waliba jannada wuu gali waliba riwaayadka qaar waxay sheegayaan in malagii uu yimid markii nafta laga saaray ku yiri wax khayr oo aad samaysay ma garan ma yabuuri ilaa hal qodob mooyaane oo maxay ah dadkan wax ka iibin jireeyo waxbaan deymin jiray marka qofka hodankaana dib baan u dhigay deenta xilligeeda qofka mucsirka waxba aan haysanna waan iska cafiin jiray dabana ilaahay uu dambi dhaafo jannu gali walaalayaal marka waxyaabaha mudan bishan ramadaan in qofku ilaahay ugu dhawaado jalla wa ala dambi dhaafka alle iyo cafiga allana ku helo waxa u mudan in qofku dadka iska cafiyo bini aadamku waa isku gafayaa dil iyo dhac iyo khiyaamo iyo cay iyo gacanqaad iyo hadeeba idmahayo xan iyo ashyaada faraha badan ee dadku isgaarsiiyaan af iyo adinba way badan yihiin bini aadamkuna wuxuu mucarrad u yahay oo had iyo jeer u bandhigan yahay inuu gaf ka dhaco oo waa gaf badan sida Allah tilmaamay nabi sallallahu alayhi wasallam uu cadeeyay haddii marka insaankii nooca yahay oo aadna aad gafayso aadna lagugu gafayo waxaa mudan ilaahay inaad ku qaabisho bishan qalbi saafiya oo waxa wixii lagu gaarsiiyay afiya adinba aad ka hadho si aadna aad ugu guulaysato ilaahay jalla wa ala raalihaanshiis dambi dhaafkiis jannadiis naxariistiisa hadeeba idmahayo deeqda alle jalla wa ala ee bishan la furayo iyo raxmaadka faraha badan ee nuur iyo hanuun iyo baraka iyo iftiin leh ilaahay jalla wa ala bishan uu qaybinayo walaalayaal dadka muslimiinta ah ee guud ahaan iyo Soomaali gaar ahaan dhibaatooyin badan baa dhexmara oo dhiigu inta badan uu culus yahay bulshada inagu aynu ka dhalanay ee Soomaali guud ahaan iyo gaar ahaan hadeeba idmahayo deegaamada aanu deganahay dilal iyo dagaalo ka dhaca dagaaladaasi inta badan waxay cuskan yihiin aanan qabiil iyo hadeeba idmahayo iyo jahli iyo aqli yaraan iyo qiimeyn la'aan qofku aanu qiimeynaynin waxa dadka muslimiinta kala mudan yihiin dhibaatooyinkaasi way dhacayaan waana dambiye culus oo ilaahay jalla wa ala wax lagu caasiyo waxa u weyn kufriga iyo gaalnimada waxa xiga dilka qof muslima oo dilkiisu xaraan yahay la dilo saasoo ay tahay de dhibaatadu waa dhacaysaa waxayna ku dhacaysaa qadar ilaahay jalla wa ala
qofkani hadduu iska celin karayo dhibaatada iska celin lahaa laakiin shaydaan iyo naf iyo qadar ilaahay oo saabiqa oo ilaahay uga golay xikmad isagu og yahay bay dhibaatooyin ku dhacayaan dhibaatooyinka haddii la hibto oo laga samri waayo oo qalbiga la isu furi waayo oo hadeeba idmahayo gocosho iyo hadeeba idmahayo xagasha arrinkaasina xaganaya uu qalbiga iyo laabta ka dhammaan waayo duniduna waa fasahaadaysaa diintuna waa fasahaadaysaa diintu waa fasahaadaysaayo qofka muslimka inta qofka muslimkaahi kala laabta xumaan ugu hayo camalkiisa lama aqbalo inta aad qof hebel xumaan laabta ugu hayso muslim ah oo laga yaabo inuu ku dhibaateeyay ama aflagaadeeyay ama dhiig kaagal ama wixii la mid ah intaad qalbiga xumaan ugu hayso camalkaaga kor loo qaadi maayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka waramay in la bandhigo acmaasha maalinka isniinta iyo khamiista ilaahay loo bandhigo ilaahay isagoo og baa haddana cardi iyo bandhig baa la sameeyaa dadka acmaashoodii kadibna ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa qof kasta oo ilaahay aaminsan aanu shirki yeelin laba qof mooyaane qof mushrik ah oo hadeeba idmahayo ilaahay cid kale ku lamaaniyey xuquuqdii alle cid kale u janjeeriyey iyo qof mushaaxin ah oo walaalkii xiqdi iyo xasad iyo colaad laabta ugu hayay waynu soomaynaa waa salaadaynaa salaatuleyl baynu tukanaynaa waxbaynu la baxaynaa qur-aan baynu akhriyaynaa waa ducaysanaynaa acmaashii lagu mudan lahaa janno iyo dembidhaaf baa dad badani la imanayaan muslimiin ah oo hadeebeedma ilaahay lagaga rajaynayo janno iyo wanaag haddii acmaasha intaa la egi ay noqoto hal bacaad lagu lisay ama hadeeba idmahayo ay adigaba ku dhaafooda ilaahay albaabada samada u furi waayo aqbali waayo miyaa garanaysaan khasaare iyo hoog ee ka weyn kalla khasaare ka weyni ma jiro marka walaalayaal ama ha noqoto qabiil ama ha noqoto qudh iyo qof waxaa la doonayaa cafiga iyo samaaxa in la badiyo gaar ahaan waxaan halkan baaq uga jeedinayaa walaalaha deegaanka shaqaaqadu ku dhex martay qadiyadooda weli jiitanku ku jiro walow fadhiyo badan laga qaatay in colaadaha la soo afjaro in xumaanta wanaag lagu bedelo in colaada kalgacal iyo walaalnimo lagu bedelo in isuhilowgii iyo islaamnimadii la soo celiyo in wixii la gocanaya ee dhiba waxaa ka weyn waxa laysu yahay lagu ilaawo in ilaahay jalla wacala haddii naxariis laga doonayo laysu naxariisto laysu hadeeba idmahayo laysu dhaafo waxa la kala tabanayo xisaabtan hufan isagu ceebaal ma leh qof xuquuqdiisii inuu qaataa waa shay sharcigu u bannaynayo laakiin gocashada iyo samriwaaga iyo hadeeba idmahayo jiitanka xumaantu jiitamayso colaadu hadeeba idmahayo ay laabta marinayso waa shay hor istaagaya ilaahay cafigiisa jalla wacala iyo karamkiisa iyo deeqdiisa ilaahay inoo furi lahaa oo ay ka mid tahay raxmaadka hadeeba idmahayo bisha ramadaan ee faraha badan oo ay ka mid tahay barwaaqo ilaahay cirka naga siiyo jalla wacala walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku leeyahay xadiis saxiixa ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال صدقة مالك ما نقصامسه وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة إلهي قفك هدو عفي سامحات دميو إلهي عزي بوزيادية إيا شرف وما تواضع أحد إلا رفعه الله قفنا دولك اسمه ديقو أو اسمه قابيو أو كبرك أنا فدا اسمه إلا وسيو أو نفتا هدب إدما هيو إن دولك توي هدب إدما كوما خصبو دبيع هدب إدما هيو إنه قرب كورارعي ولا ليس مسلمين تا إلا رفعه الله هدو صاصم إلهي جل وعلا سيغن عزي إيا كرقادو صمية bulshadeennu waxay u taqaanaa qofku markuu qofka dhinaca adag tuso hadalka adag tuso hadeeba ilmeeriska dhicinta iyo bootada iyo maxaa dhahdaayay hadal markuu ka adag yahay goobaha lagu wada hadlaya iyo mowqifka isgiijinta qof waliba tanaasulka diidayo bay dadkeennu u yaqaanaan sharaf iyo ciz iyo adag kalla shareecadu waa miisaan dhaba
wax kastoo dunidu ku aslaaxaysa iyo maxaa sharaf ahayn maxaa ciziya maxaan cizi ahayn nabi sallallahu alayhi wasallam iyo allah jalla wa ala wa balbalari ilaahay marka wuxuu tilmaamayaa qofka hadduu cafi qaato ilaahay waxaan cizi ahayn ugu masiyaadiyo qofka hadduu naftiisa dhul dhigo oo hadeeba idmahayo isdabciyo oo adayga iyo isla weynida iyo hadeeba idmahayo anafada qabiilka iyo hadduu ka hadho ilaahay jalla wa ala kor buu qaadaa inaga lafteenu markaan aqliga dhabta ka shaqaysiino bini aadanka qofka u yaani cafiga badan ba u gobannimo badan waxay yiraahdaan marka la fasiray kelmadda gobannimo ama dadkaasi waa gob waxay yiraahdaan geedka gobka dadku wuu shiida dhagaxan baa lagu tuuraa isna wuxuu kugu jawaabaa midho macaan oo naftu jeceshahay oo aad macaansato marka gobannimadu waa qaabka weey waana sida sharcigu ina farayo idfac billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa kaannahu waliyyun hamim ilaahay wuxuu leeyahay jalla wa ala waxaad ku bedeshaa xumaanta wanaag waxaad arki doontaa iyadoo qofkii cadaawadeeda ka dhaxaysay uu yahay qof tol ah oo ku jecel oo hadee beedmay ku xiriirinaya oo ku hiilinaya oo hadee beedmay wanaagii uu saameeyay baad arki doontaa intaasoo aayadood oo kala duwan ilaa 3 goobood oo kala duwan baa macnaha noocaas quraanku uu ku tilmaamay marka walaalayaal waxa leh sharafta leh waxa gobannimada leh waxa wanaaga leh hadii qisaskii dadkii hore dib u raacdo oo ka sheekayso waxa la isku amaanaa waxa way qofkaasi inuu hadeed dadkii kala dhaqaajiyay tolkii kala dareeriyay maxaa dhahdaayay xumaantii colaadii soo afsharay wanaag ku bedelay xaqiisii islawsiiyay xaqii kale iska bixiyay waxa dadka lagu amaanaa qisaska aynu ka sheekaynay abka soo gaarka dadka lagu amaanaa waa cafiga iyo sharafta iyo qofku inuu hadee beedmahayo tanaasul sameeyo laakiin ma aha waxba sharaf ma leh hebel baa gadooday hebel buu intuu u qaatay ama ciidan soo humayna ka dhigay wax sharaf oo ay leedahay ma jirto qiyaamana waa dambi iyo cadaab adduunkana hadeeba idmahayo waa sharaf dhac iyo hadeeba qiimo la'aan iyo hadeeba wilbaas iyo wilhoog weeye iyo waxa la midka ah ummadda ilaahay oo dhan qalbiga ka nacabtay qofka dagaalka horiya waxa ku faana waa in kooban oo laga yaabo inay jifi yihiin oo aan adduunna wax ka ogeyn aakhirna wax ka ogeyn laakiin dadka badankiisa iyo qofka qiimaha leh iyo qofka aqliga caadiga ku dhaqmaya waxa la cizeeyaa waa qofku inuu nabadoon yahay qofku inuu islaaxa ka shaqeeyo qofku inuu colaadaha soo afsharo hadee beedmahayo colaadaha uu daweeyo ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah qofkii wax afiya islaax la yimaada wixii uu qadibay hagaajiya ajirkiisa allu kulay jalla wa ala fa ajruhu ala allah waxa leedahay milcsi ilaahay isaga ajirka bixiya oo amal kasta oo saalixa ilaahay isaga ajirka ka bixiya maxaa loo leeyahay fa ajruhu ala allah waxa la tilmaamayaa ajri weyn oo qiimi badan oo aan la koobi karin in ilaahay jalla wa ala ku bixinayo cafiga iyo islaaxa qofku uu sameeyay dadka dhexdooda uu islaaxiyo nabi sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay ya rasuulallah kam na'fu 'anil khadim afigu qabaa'ilka kaliya ma gale qof iyo ubadka kaaga baahan iyo walaalaha iyo qaraabada afi kaaga baahan xaaska kaaga baahan gabadha ninkeeda ama dhaado gabadha xaaska aba ninkeedu afi uga baahan yahay dariska afi isaga baahan shaqaalaha iyo ninka madaxda afi isaga baahan asxaabta isjecelba inta wax kala gaarayaan afi isaga baahan nabi sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay kam na'fu 'anil khadim qofka shaqaalaha noo shaqaynaya inta uu khaldamaya intee baan u cafinaa jeer nabigu waa aamusay mar labaad baa lagu celiyay waa aamusay mar saddexaad baa lagu celiyay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marra maalin walba 7 jeer cafiya rawahu abu daawud wa sahahu al-albani hadii saxiixa way 7 jeer waxaad sawirata
ما قف بني آدمية تضباطا قف مالك يقلي كره يعني تضباطا خلط وشغله كصابسا وقمنا أيوه أما أمر كيل سيء فللا أنت هالنقطة أما واحد الله درسنا هالنقطة تضباطا شير قف خلط مالك جودي كقلي يواكما وحلا وركنا وأندر من النادر يعني وحاد ويرعي دعضه محمد وجه صلى الله عليه وسلم وحكسته سميه اسكعف ولذلك ما أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي وحد النبي وخدمه وشقيه طبعا صنادود والله ولي إما قراعين إما عنانا إما هدوفين وحانا أوران أنا سمين إما أوران محادو سمين ويدي وحان سمين إما أوران محادو سمين وسمين إما أورانين معنيه بل تصور قف طبعا سنة كوشة غينية ومال كلية آذن أوران محادو حاو سميس أما أوران محادو حاو سمين ويدي إنه قوبت كينا وحالي يابا إنت أسود مالك العنانته ومحادو حاو سمين حان كودر الماي أما هدي بيد ما هيو إهلك أما هدي بيد ما يددك أينو قعان كوهين مسؤول كذا وحلقة يابا أنت أسوشير وكل الدول إن قف هذا بيد ما هو عنانته مالك بعد إكرته والله ليال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحلا فرجال هذا يكون دوين نسكع فيه وإنت آية السيف هي جهاد كالليس فرين آية بدن بكون صدقي فاصفح الصفح الجميل يعني إسكتشسو إسكدافو دافدوا عن إسكقاضي وحي الله الماله marka walaalayaal muslim iyo gaal qofku inuu cafiyo cidda dhibaabaysa waxay tahay cizi iyo sharaf bay tahay qofku inuu cad goostaana iyadoo xaqba u leeyahay intii qofka la yeelay shakhsi ahaantiisa in la badan inuu la mida inuu yeelo cidii u geysatay maaha qabiil hebel toban nin buu naga toomaan ka dilina ma aha adiga naftaada wixii la gaarsiiyay qofkii ku gaarsiiyay ولو قال أنت اللي قد كسبته وجزاء سيئة مثلها يعني حمان أبال كذا وحمان لمدة وامحي والله بدي غفر رحمة سيو ودي أنت كلية أن يعني حبين هذا بيد ما هي فرصة حبين هذا أن أما عدي أن دافس سنين أنت ولا جو أقوليه لكن ما كقيمة بدن فمن عفا وصل آية فمن عفا وأصلح فأجره على الله قفك وعفية إسكدافة هجاتي وحي خلدمي أجر كيسة وحكولية الله النبي صلى الله عليه وسلم صفات كيسة عفو كمدها صدا إنه تلماني أو قصص بدن باكويمد نبي نحسك عفي وحكم من قصدي إنه تلمام إنك أعرابي جاها أنت النبي صلى الله عليه وسلم كذب يمد يده وحريه جو ضرب كيسة مدعى الكيسة أدقي هاي وكسر دفتة بيننا جرجر جو والنبي جا لغنتيسة رات كسمية تبين النبي صلى الله عليه وسلم واقعي وأبا قصليبا محوجري وليبا هالصي نك مركا عربي وحوري يا محمد وليبا أفحمضة رسول الله ما أورن يا محمد وحي الله كودي وإحنا قصي النبي صلى الله عليه وسلم واقعي وقصلي وحوري هالصي وليبا حديث تغار لبا أو وحي قاذان أو راشدة هالصي النبي صلى الله عليه وسلم ويلي هذا هو العف النبي صلى الله عليه وسلم عفقه وقادني كاسوها أو مدن إن لقى قديدو وتنت المام من النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يجوا كسرنا غصة ذات الرقاع كسرنا غضي بقول ظهر وقيلوش يجي لقاري وردي دور لماذا بيميل دجين جيدك الدوام بي كوكلا تجين أما هذا بيد من ما جيد بواد جيد من النبي صلى الله عليه وسلم نين عربي يمين مكان النبي سيحضي سيفتي سب الله بحي طب النبي وحنا كلا غادي سجوا سيفتي دول هرنيه نيك عرفي وحو كوري ما يقبقيسا وحو ما يكابق ماي ويجا كعلنيه الله وسدح شريري كدبنا سيفتي با كدعدي النبي صلى الله عليه وسلم سيفتي بو قاطي كدبنا وحو كوري نيك عربيغا هربيغا اديga يجا كعلنيه نيكي دا الهي ما يقانو وحو يكون خير اخر ني سيف قاطكي وخر بدنا نقو واسكا كيدا النبي صلى الله عليه وسلم وحوري ما إسلاميو أتشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله ما قرأت إلهي مويا الله حق عابدا إن نشرين أنا رسولك الله هاي ما يبود لكن وحكوب بالله قاضية ولي إن أنا كل الدجالمين عل كل الدجالمين أنا صراعين نجي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كده من التلك بتوحوري الدون كنك وخر بدنابان ينصار كمانت
يعني waxaad sawirataa adiga hadii nin intuu ka helo meel cilla aadan dayn iyo dil midna ka qabin nafiya maaltoona aadan ka hayn uu qori kugu qabto oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu qoriga ka rido adigu aad qaadato oo aad tiraahdo maxaa sameyn lahayd haddaadan dilin dabaad ka soo kaxayn lahayd waad xidhi lahayd tolkaan isugu yeedhi lahayd ninkan xaal halaga diicitaa la garto oo dadka la yaqaano uu noqdo qodiga xaal halaysiyaad odhan lahayd sida aynu u dhaqanay faraha badan inaad iska caafido tiraahdo iska tag inaga meena soo bilahayd waxaan isleeyahay qiyaaska bini aadamka deeyahay waa soo saar kara dad noocaasa laakiin aqliga inaga aanu hadda ku shaqeeyno wax suuragal ama marka walaalayaal afiga inuu kaga dayay nabi sallallahu alayhi wasallam وإنه كذا دينا أبو بكر وإنه كذا دينا عمر رضي الله تعالى عنه isagoo caadil cumraha oo xaakim anaha oo ajam iyo arab iyo gaal islaam bacaligiisi laga sheekeeyay bani arabi ku wallahi umarow cadaalad lagu ma dhaqdid xoolaha ila ku siinama wax naga siisid aad ba umar markaa u carooday marka nin saxaabi ninka waday baa wuxuu ku yiri umarow ninkana waa arabi waana jaahil ilaahina waa kii yiri khudil afwa wa amr bil urf wa arid al jahilin afi qaado dadkana wanaaga far dadka jaahiliinta iskaga jeeso dan ha u galin kana jaahilintu kamid yahay umar caradisi waa degtay radiyallahu ta'ala an يعني وكان وقافا عند حدود الله حدود الله مid ku gaabsado hadii aayada ama xadiiska maqlaan dhaafin buu ahaa waxa la naga doonayaa inaynu ka dhigano hormuud iyo astaan aynu ku dayano nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatullah wa salawatuhu alayhi nabigeena ku dayna la doonaya waxa la doonayaa in ku dayano jiilkii saxaabada iyo salafka lahaa ee tadbiiqiye shariicada ee hadaba idmahayo ummadda ee nabi maxamed uu khaar ka badnaan ku dayna la doonaya waxa la doonayaa in hormuud ka dhiganin nin qabqabla dagaal ah oo oday hebel laga sheekeeyay iyo hadaba idmahayo wixii la halmaala iyo qisooyinka colaadaha qawaalka dhexmara iyo dilimbaas iyo inkaaro aynu ka sheekeyno in laga tagaa la doonayaa dad muslimiin oo dhaba oo ilaahay isu dhibayno noqono ala wa sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبات الطاهرات وعلى الأمة الإسلامية أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تغيثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدغا اللهم إنا نسألك الغيث والرحمة اللهم إنا نسألك الغيث والرحمة اللهم إنا نسألك الغيث والرحمة اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة